maanta waxaynu eegaynaa casharkii koowaad ee ETAB 2016. marka koowaad waxaynu ognahay ETAB inuu ka kooban yahay 4 xaraf E iyo T iyo A iyo B. E-da waxaa loo soo gaabiyey extended halka T-dana loo soo gaabiyey 3-dimensional, A-da waxaa loo soo gaabiyey analysis, halka B-dana loo soo gaabiyey building. markaan intaa ka gudubno afartaa qodob. haddaba ETAB wuu ku sameeyey. ETAB waxaa sameeyey company laga leeyahay Mareykanka oo la yidhaahdo CSI. markaan hore uga soconno ETAB haddaba maxaa la qabtaa? ETAB 4 shaqaa la qabtaa. markaa daaqada ETAB kaa furatid 4 shaqaad qabanaysaa. shaqo walba ay leedahay qodobis ama subpoints. shaqada koowaad qabanaysaa waxaa weeye modeling, iyadoo kusii kooban subpoints. analysis baa ku xigta, design baa ku xigta, detail baa ku xigta. afartaa qodob mid waliba ka kooban tahay subpoint baad qabanaysaa. markaa daaqada ETAB kaa ku shaqaynaysa. markaad hore usii socotid waxaa kugu xiga ee step koowaad. marka daaqada ETAB aad furatid aad qabanaysaa waxaa weeye sida aad u bedeli lahayd SI unitka. SI unitka intaadan bedelin ka hor markaad ku cusubtahay ETAB daaqada noocaas ay kuu soo baxdo waxaad oranaysaa halkan 2 daaqadood bay isku abalbal yaalla. tani waxaa weeye open oo markaad rabtid file hore ugu safaraysan furtid oo aad wax ka bedeshid. sidoo kale waxaad ka heli kartaa ka furan kartaa Ctrl+O. daaqada kale waxaa weeye iyaduna markaad doonaysid inaad file cusub furatid ama aad doonaysid inaad project cusub bilaabatid. markaad daaqadaas soo furatid waxaa kugu soo baxaya 3 qodob ay soo yaalla oo mid waliba ka kooban yahay, mid waliba uu xambaarsan yahay mowduuca. kan koowaad waxaad isticmaalaysaa isaga marka koodka aad isticmaalaysaa aan kugu save garaysnayn aanu shirkadda ETAB ama CSI aanay soo save garayn oo aanu ugu jirin koodka save garaysan. qodobkan labaad waxaad isticmaalaysaa marka aad rabtid inaad furatid file hore ugu save garaysnaa oo aad doonaysid inaad wax ka bedesho. file hore ugu save garaysnaa baad rabtaa inaad xoogiskii ku jiray sidiisa u qaadatid. beam dimensionkii column dimensionkii adigu aad wax ka bedeshid laakiin aad wax yar ka bedeshid ama aad tabtoodiiba ku qaadatid ayaad isticmaalaysaa kan labaad. qodobkan saddexaad waxaad isticmaalaysaa marka uu kuu save garaysan yahay koodkaaga. halkan codes badan baa ku jira. waxaa kamid ah Euro code, Indian code baa kamid ah, Russian code baa kamid ah, codes aad fara badan baa ku jira. Chinese code baa kamid ah, American Institute of Steel Construction baa kamid ah. marka codes aad fara badan baa ku jira. marka halkaa ka gudubtid codeskan oo dhan waxa ay ku jiraan oo soo save gareeyay shirkadda ETAB ama CSI. marka aad gudubtid waxa weeye kan waa steel code-ka. haddii aad rabtid inaad dhismo steel design gareynaysid waa steel code-ka isticmaali lahayd. sidoo kalena waa steel section database. halkan waxa weeye concrete code inaad design gareysid. American Concrete Institute baa kamid ah. codes kale aad fara badan baa kamid ah. Hong Kong baa kamid ah, Euro code baa kamid ah. marka intaa ka gudubna isla garanay halkan waa SI unitski. xabadan horeysay US customer ay ku qorantay waxa weeye haddaad rabtid inaad ogaatid waxay tahay halkan bay kugu soo baxaysaa daaqada ayar baad ku dhufanaysaa ayda waxaa weeyaga ee ku hortaalla. marka daaqadaas ugu fitid bay kugu soo baxaysaa maxay ka kooban tahay, waxyaabaha ay ka kooban tahay ama unitska ay ka kooban tahay waxa weeye feet squared. angle squared kii qaadanaysid area dadka waxaa ku noqonaysaa inch squared. aqalankaska uu ku noqonaya inch. haddii aad rabtid inaad ku shaqaysid meter centimeter waxaad ku dhufanaysaa tan metric MKS. wuxuu ku weyn meter centimeter millimeter aad si dooranay markaad rabtid. marka inta aynu ku gudubno waxay noogu xigay step waxa weeye okay wada oranaysaa. waxaan ku dhufanaa tusaalaanka koodka kale waxaan odhanaynaa koodka uu noogu save garaysnaa maadaama aanu jirin kood si rasmi ah ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. hadduu jirana aan ka cudur daaranayo aanan garanayn. xabadda koowaad baan ku dhufanaynaa okay wada oranaysaa. waxaa kuu soo baxaysa daaqada noocana imka ujeedadeenu maaha laakiin waxa weeye haddii aad rabtid centimeter oo kale saad u bedelaan lahayd waxaad oranaysaa grill baad ku dhufanaysaa. marka imka daaqadan uma socono muhiimadeenu maaha, gadaal baan iyada ka eegaynaa. okay wada oranaysaa. marka aad rabtid inaad specific unit isticmaashid daaqada yar baad furanaysaa ay units ku qoran tahay. marka daaqadaas aad furatid consistent unit baad ku dhufanaysaa. consistent unit baad ku dhufatid waa kaa. haddaan rabo inaan feet ku shaqeeyo waan ku dhufanaya. haddaan rabo inaan millimeter ku shaqeeyo waan ku dhufanaya. haddaan rabo inaan centimeter ku shaqeeyo waan ku dhufanaya. sidoo kale haddaan rabo inaan meter ku shaqeeyo waan ku dhufanaya. waa longest unitkayga. foruskayga kale haddaan rabo inaan pound ku shaqeeyo waan ku dhufanaya.
haddaan kilometer rabo waan ku dhufanayaa markaa taas anigii taalnaamada ama qofka hawsha ayay u taallaayo isaga khusaysaa tuu dooranayo iyo waxa uu doonaya soo qaadinaku waxaan rabnaa inaan ku shaqeyno halkan inaan ku shaqeyno millimeter halkan aan ku shaqeyno kilonewton oo ka wada oranaysaa si toos waxaan kugu noqonayaa millimeter dimensionska column to column distance-igu center to center columns waxay ku noqonaysaa si toos kugu noqonaysaa millimeter haddaad rabtid inaad feed ku shaqeysid waa ka dhiganaysaa haddaad rabtid inaad ku shaqeysid wax kale aad ka dhiganaysaa aad khusaysaa marka intaan ku gudubnay step ku xigeenayna waxa weeye display-ga aynu haysanaa wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybtan oo 3D iyo qaybtan oo 2D qayb daaqada kaliya uma baahno imkaan anfici mayso waxayna anfacaysaa markaan sameynayno detailing aynu iska xidhnaa daaqadaas waayo aanay anfacayn imka aynu waqtigeedina joogno markaan detailka dhigayno anfacaysaa markaasna dib baynu soo furanaynaa laakiin waxay ku xigay ee imkaan doonaynaa waxa weeye sidee baynu bedelanahay display color display-gaana haysanaa labaduba waa caddaan laakiin ma isticmaali karnaa color kale haa waan isticmaali karnaa colors badan baa jira waxaad tegaysaa options markaad ku dhufatid halkan baad imanaysaa graphic colors ay ku qoran tahay graphic colors markaad tagtid display baad kaga soo dhufanaysaa display markaad ku dhufatid waa tan halkaas ay screen ku qoran tahay waad ku dhufanaysaa halkan waxaa kaga soo baxaya black background miskale haddaad doonaysid blue waad ku dhufanaysaa grey haddaad doonaysid waad ku dhufanaysaa white haddaad doonaysid waad ku dhufanaysaa black background baan ku dhufanaynaa oo ka wada oranaysaa